السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأولئكين أيوم نضارة هل كانوا عنكم وسق بنيا شن وحيابات سميتوا ذا يفضل ضحي عند رجينا إله سبحانه وتعالى قيس كذا كو بركيو كو بقرآن الله أقريو لو بقول جروا الاستغفار سدا من النبي قال له صليو سدح هل حديث الله أقريو أفر cunada oo si wada jir ah loo cuno shan amal kasta oo lagu bilaabo bisinka qof kasta oo inaga mid ah waxa uu jecel yahay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala u barakayo reerkiisa hadaba shantii qodob aynu soo sheegnay ee u faahfaahsan idaho qodobka koowaad aqrinta quraanka qof kasta oo guriga ku nool oo yaqaan quraanka kariimka وإنه أقرأ وجيران مالكي هلبك وجيران مالكي هلبك ونجوكتيا وأن أغنهي وإنه أغنهي قرآن كوحة كسجن فضائل آدي آدي أبدا بركوين أنا حساب لهين أي كنت القرآن لما رلبوا استغفارته أما صلى النبي عليه الصلاة والسلام قف كستا oo guriga kamid ah inuu maalinkii istighfaarsada 100 jeer ama ku saliyo nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ama hatta uu tasbiixsado waan ognahay istighfaarta ama saliyo nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ama tasbiixda fadaaisha ku sugan lambar 3 in hal xadiis la aqriyo habeenkii markii ay reerka ay jiifanayaan jiifka markay isku diyaariyaan inta ay sii jiifan ka hor in qofka uu aqoonta badan dhanka diinta la yiraahdo hebelow bal waxaan u aqrisaa hal xadiis oo ka sugnaaday nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam lamar afar in cunada loo cuno si wada jir ah arintani dadka inta badan kuma baraarugsanaa laakiin waxa ogaataa cunada oo loo cuno si wada jir ah inay barka leedahay sida ku sugan ahadiita rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa habboon reerka in cunada ay u cunaan si wada jir ah labarshan oo ah lamka ugu dambeeyo waxa weeye in wax kasta lagu bilaawdo bisinka nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay wax kasta oo aan lagu bilaaban bisinka barkadiisa ma dhameystirna oo nuqsaan ayaa ku jirta ku bilaaw hawshaada bisinka markaad hawsh guriga qabanayso wax kasta oo wanaagsan ku bilaaw bisinka fadlan la sii wadaag walaalaha kale وإنه مقال كلو حساب بدن إن شاء الله تعالى.